السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawareysaan ku soo dhawaada mid kale oo kamid ah qisooyinka cajaa'ibka ah ee dunidan aynu ku noolnahay ka dhacay kuwaas oo aanu isleenahay wax badan aynu ka ogaan karnaa oo aanu ka baran karnaa. haddaba qisada magaceeda waxa la yiraahdaa imaaradii laga guuray dusheeda sare. معناها عمارة مهجورة وقري مارتي aan la deganayn markaas oo laga guuray dushiisa sare dabaqa meesha kore ayaa wax ka dhaceen. marka waa runtii sheeko aad cajiib ah, waa sheeko aad iyo aad markaan akhrinayay aan aad iyo aad ula yaabay, adinkuna waa ka heli doontaan. haddaba qisadan waxay dhacday sanadkii 2002 waxay ka dhacday boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan magaalada Jidda. qoys ka soo jeeda dalka Chad waa taqaanaan, waa dal deris la ah Suudaan. dalka Chad la yiraahdo qoys ka soo jeeda oo ka koobnaa aabe iyo wiil iyo 4 gabdhood iyo hooyadood ayaa waxaa geeriyooday aabihii muddo dheer dadka soo galay Sacuudiga ayuu ahaa, halkaas ka shaqaysan jiray. awlaadda wuxuu ku dhalay halkaas, meeshay ku koreen dad waaweyn ay noqdeen. odagii marka wuu xanuunsaday, wuu dhintay, mamlakada lagu aasay, Sacuudiga lagu aasay. wiilka ugu weyn reerka, gabdhuhu marka aad ay uga yaryar yihiin wiilkii marka maadaama aabihii dhintay, caruurtiina yaryar tahay, 4 gabdhood ay yihiin, hooyadiisna ay qof iska weyn tahay, haddee fadhi uma yaalo. marka hore waxbuu baran jiray, waxbarashadii wuu joojiyey. yacquub qof aad u fiican oo baari ah oo wanaagsan waaye. wuxuu go-aan ku gaaray yacquub maadaama qurban la joogo, waddan dibadda lagu nool yahay, odagii reerka u shaqaynayay oo meesha caruurta iyo waxa dhan iyo biilka iyo masaariifta iyo guriga kiradiisa waxa bixinayna uu dhintay, isagaa dhexda xirtay inuu maalin aysan gaajoon hooyadiis iyo 4 caruurta ah. shaqadii uu ka soo tegay ee waxbarashadu iska daayay, shaquu marka ka shaqeeya, habeen iyo maalin wuu shaqeeyaa. 2 arrin muhiim ah: guriga kiradiisa iyo noloshooda. waa shaqeeyaa, hooyadiis waa u ducaysaa, waa shaqeeyaa, shaqo kaada nolol kale iyo adduunyo kale iyo wixii dhan uu iska daayay inuu hooyadii ka farxiyo, aysan maalin gaajoon, ayadii caruurteeda yaryarka ah, booskii aabihiis uu galo uu shaqeeyo. marka waxaa jira dukaanka waxa la baqaalada waxay ka soo horjeedaa guriga ay degan yihiin. cimaarada ay degan yihiin wiilkan jaadka ah waxaa ka soo horjeeda meel maaragtay baqaalaha oo dukaan ah. dukaanka marka nin baa gada, ninka waa hindi dukaanka meesha, laakiin caraba iskale dukaanka Sacuudiyaan, laakiin ninka shaqaalaha oo meesha muddo gadaayo waa nin hindiya waa. ninkii iyo yacquub iskuma fiicna, way isku dhacdhaceen dhowr jeer. yacquub wuu ka wareegtay dukaamo kale oo wax ka gataa, laakiin waa gurigiisu ka soo horjeedaa. ninka hindiga marka waa cuqdad badan yahay, ninkan siduu wax kaaga gadan waaye camal, ma dukaankaasaa iskale, carabaa iskale. nacayb ninkaa madow u qabo iyo waxa kan meesha wax badan isku darsoomay. marka waxaa jira apartmentiga ay degan yihiin yacquub waxaa ka soo horjeeda apartment kale oo dad yamaniyiin ay degan yihiin. cida yamaniyiin ah ayaa ka soo horjeeda. macnaha guriga dabaqa ah 2 cimaaradood, cimaaradda waxa 2 apartment waaye. shuqa la yiraahdaa af carabiga, shuqada iyo shuqada iska soo horjeedaan. marka midda ay degan waxa ka soo horjeeda opposite-kooda, ka soo horjeedkooda reer yamaniyiin ah. reerka yamaniyiinta waxay dhaleen wiil iyo gabar. wiilka waxa la yiraahdaa maajidku marka waxbarasho ma rabo, waa wiil akhlaaq xun waaye. meesha uu degan wuxuu bilaabay gabdhihii dariskiisa ahaa inuu maaragtay taxarush wax la yiraahdo ku sameeyo.
inuu taataabto inuu maaragtay markay guriga galayaan gabdho yaryaro hadda soo baxayo waa soo koraay waxa marka waa ceeb marka loo fiiriyo gabdhaha deriskaaga maartay laguma saqajaamo xataa iyadoo xumaantu ay xun tahay oo dariiqa xataa gabar maraysa aysan ahayn inaad maartay wax xun ku tiraado ama aad ku samayso ama ay xun tahay haddana derisku waa walaasha oo kale waa gurigooda kasoo horjeedkiisa waaye isku meelaa lagu soo koray marka gabadhii yarayd ee reerka ayuu sirsirtaa kuwa kale waryaa laga tagay dheh wallaahi waa ku dacweynaynaa dheh wuu cabsaday gabadha yariistaa marka oo markaa soo qaan gaartay ayaa iskuulka markay ka timaado iyo hadiyaduu siiyaa xogaa ka weyn nacnacuu siiyaa hadiyaduu siina wuu sirsirana walaalkeed yacquubna mashquul waayaba subaxii shaqo aad soo laabo xoogaana soo laabo galabkii shaqo kale aad habeenada qaar shaqo kala shaqeey guriga karadiisa ilmaha waxbarashadooda waxa dhan waa lacag waxaa soo bixinaa ninkan maajida marka wuxuu ku mashquulay gabadhii yareed waa sirsirtay kii hindiga ahaa ee dukaanka hoos ku lahaa ayaa dhowr jeer marka wuxuu isku arkay wiilkan maajida iyo gabadhan madow ee socota iyo waxaas inay gabadha la dhalatay yacquubna wuu ogyahay maalin maalmaha ka mida marka cimaarada marka ay degan yihiin guri jajaban ayaa ku dhegan waa laga yaqaanaa wadamada dadka jidda iyo jooga cimaara mahjuura wax la jira macnaha guryo oo laga haajiray camal oo aan la joogin oo dadkii lahaa siyaabo kala duwan ay u dhisan waayeen waxyaabo saasa iska jira wadamadan waa laga helaa carabta gurigaas oo kale marka anaga Soomaaliya dhigi jirnay guriyii la fiiqday oo kale guri burbursan camal wax saas camal waa cimaara mahjuura la yiraahdaa mahjuura waa guri laga haajiray oo aan cidna deganayn maalin marka duhura ayaa waxaa cimaarada fuulay ninkan marka dukaanka wuu u jeedaa cimaarada mahjuurada waxaa fuulay maajid wax yar kadib gabadhii la dhalatay yacquub ee jaadka ahayd ayaa cimaaradii ka daba fuushay markay meesha ku maqan yihiin yacquub oo shaqo ka yimid dukaankiisa soo hormaray arkaalay oo dhahay yacquub maxaa iga rabtaa marka labadooda iskuma fiicnayn laakiin ninkan wuxuu rabaa inuu baxar geliyo dhagaysuu dhahay aniga waa ogahay inaan adiga isku fiicnayn oon dagaalsannahay laakiin qoys oo aan fiicnayn ayaa u egtihiin maanahay leedahu yidhi qoys aan fiicnayn ninkan jaadkan waa nin xoog badan oo madow hindigana wallaahi wuxuu yidhi dukaanka inta kasoo boodaan eeji kugu qabanaa yaa kalb ee dhaan carabtii oo kale waa ku koreen meesha markaa alaabtii lagu cabani hore wuxuu yidhi isdeji horta waraa ku hayaay haye gabadha yartaa ee walaasha ah haa meel ma ku sheegtaa maxaa kaa galay yidhi walaalahay gabadha yartaa wuxuu yidhi wiilka deriskiina maajid la yidhaahdo ayaa iska watuu yidhi war haddana walaasha igu hor caayaysaa u yidhi macnaha walaasha war aniga hortay dhegayso dhahni adiga waxba gabgabta isdejiyo dhahni waxaan kuu sheegayaa haye cimaara mahjuura macnaha guriga oo laga guuray oo deriska ah oo naga soo horjeeda haa maajidaa fuulay walaasha waa ka daba fushuur meeshaa ku jirtaa nagtaa laga saaraya wallaahi alcadiim wuxuu yidhi gurigaan tegayaa gabadha walaashay haddaan soo waayo adaan kawkaasiidha yidhi waraa walaashay caayaysaa miyaa war aniga waraa kuu sheeg wuu yidhi aday kuu taallaa yacquub waa cararay gurigiiu tegiyey gabdhihii kalaa jooga aw yidhi ti yarayd ma naqaanay dheenise iskoolka u aaday weli ma soo laaban hooyadii weydiiyey hooyo maaratuu yidhi mayay tiri kushiinkuu galay midi meesha taalu soo qaatay u soo cararay cimaara mahjuuradii gurigii cidlada ahaa ayuu jarajaradii koray dhag waa sheekada waxay ku saabsan tahay qisada waxay leedaha
sadxiga ama guriga korkiisa cimaarada mahjuura la sheekada saas ah guriga korkiisa sadxiga meesha ah oo meel shuba iska banaan oo aalo meeshaati labadana hoosta isaga jirta ahlan wa sahlan asoo mididi gacanta ku wata ayuu dul tagay wiilkii kuleetiga qabtay gabadha waa degatay waa carartay qalada fahmaysa yacquub qalada fahmaysa mahalla yacquub ciil nafta goorabta kii kalena uu soo kululaystay hindiga walaasha gabdhaha walaalaha meelahan lagu haystaa soo madhin ninkanna waxaa niyadda uga jirta waqtiga uu geliyo iyo siduu uga fakarayo iyo waxa ay samaynayaan ninkan waa sa'alin waayo madaxii inta qabtay yamanigii ayuu qoorta ka jaray nag madaxii xagguu ku tuuray nimankaan maaratay halis waay caadi ma ah asagoo mididii ay ka tifqayso dhiiggii ka tifraqayo ayuu soo degay markaasuu wuxuu yidhi aaway gabadhi ayadana inuu ku daruu rabay ayada marka way carartay guriga inuu uga daba imaanaa way ogeyd guri kale oo gabdha ay saaxiiba yihiin iskool yihiin oo ay marmar aado ayay u carartay jidday ka dhacaysaa 2002 warbaahinta dhan usoo qoray jidda ninkii marka cabaar markuu meesha taagnaa ayuu baxay mididii iska tuuray asna guriga kuma noqon meel kale oo nin kale ay saaxiiba yihiin oo jaab ah oo macnaha isku wadan ay kasoo jeedaan ayuu aado oo isla shaqeeyaan soo madax gacmaha saartay ninkii u tagay maxaa kugu dhacay yacquub warina waxaa sameeyay wallahi waana u baqayaa walaalahay iyo hooyaday haddii la ay qabto wallay ka taan lay deenayn waa lay dilaa yiri sacuudiga waa lays dilaa ninkii nin dilo qoorta laga jara wadamada kale barooka iyo aan ka sheekeynayna xabsi daa'in iyo meesha lama qoro sayf ku taalafay madaxa laga jara wallahi ma lagu cafinayo wuxuu yiri marka aniga horta wuxuu yiri ardigayga iyo sharafkayga waan u dagaalamay laakiin xukunkaas waa igu dhacayaa maxaa qabtaa miyay caawini kartaa sidii wax u dhaceen oo ninkan waa saaxiibkiis wallahi niyo waxa aan samay ma garanayo yiri laakiin waxa u tagtaa yiri Makka tag meel heblaayo tag nin hebel leeraa marmar ii yimaado inta isku aragno ha Makka uu degan yahay ninkaasaan telefoon u dirayaa waa la hadlaynaa ninkaasa gurigiisa meesha tagay meesha isku qarib bal horta maalmo baabuura la soo saaray dhag gurigii ninkii tagay booliiskii meesha yimid booliiskii ninkii hindiga meesha taagan haye sidee wax u dhaceen ani dukaankan ku jiray ninkan yimid Majid wiil leeraa Yamani ah ayaa meeshan galay gabadha ka daba gashay ninkan yimid wuu cararay mindiyo qaatay walaashiis meesha lagu waxaynayo u tagay nagto ka saaray ninkii qoortu ka jaray saasay wax u dhaceen ninkii guriga tagay booliiski ma joogo meel kasta ka fatasheen way waayeen war ninka xagee laga arkaa booliiski ninkii inuu baxsaday way arkeen markaasaa meel kasta la raadiyay yaa yaqaanay yaa marka dambe nina wuxuu yiri ninka hal nin ay saaxiib yihiin basidiisa haye oo meel heblaayo degan ninkaas haddii laga waayo ninka ma joogo jidda booliisku waa soo carareen qaybna waxay raadisay gabadhi guriga laga raadiyayna waa la waayay ayadana gabadhi la raadinaya gabadhi waa la soo qabtay guriga saaxiibadeeda loogu tagay wixii dhacay dhowna sheegtay meeshaas ani iyo Majidna lagu arkay Majid uu qoorta ka jiray walaalkay anna waa ka baxsada waa carra ani hadaa joogilaa way dil lahayd ana og way dil lahayd Yacquub waana raadinayay moogtay ninkii marka jaadkii loo tagay Yacquub shaqaalin يعني يعقوب ما أعرف عشوب شغله وهنددين بوليس وياكو قراعة يا سعودية كان مركزو نكي وحيرني ونكي أنا يعاوي ويري وحنكو عاوني كرمك شاوى أننا صاحبنا هاي أو لبعض كل علي نكا سقة سدا نكا ومدلين ويلك الدرسي هاي لكن عشان ويلك ياكو حد قد ولا شيء أنا ما قرنا لي الشيخ نكا شك
war makaan u diroyr aniga nin meeshaas joog makadii ala aad boliiskii maka joogaa loo diray ninkii aan la qabtay asna inuu inkiro damca wallahi ka taalir wallahi idin kiri jiray asna wuxuu yiri ninka aniga waa iga tagay saacado yar oo ila joogay ma joogi karo yiri aniga waan baxayaa waxaan aadayaa waa tahriibaya wadankaygan ku laabanaya waa ka baxsanaya Sacuudiga ay sidee u tahriibaysaa ila wuxuu u yiri masjidka xaramkan tagayaa muassasaad oo waxa jira hay'ado dadka caawiya intaasoo 2 sano ka horaan xaj imaaday waraaqii xajkii wixii dhan waa iga dhumeen haddana waxaan rabaa dalkayga inaan ku laabto marka in tarxiilka la geeyo oo la tarxiilo wadankiisa lagu celiyo saasaan sameynaa asoo saas dhahay ugu dambeysay Iiraan boliiskii waa baxay ماشي ترحيل كلا كرادي ولا رادي ولا نيك مقعو بدشي مقع كلو ترحيلك كوكاي مركاسا صورك يا بركة وطال نيك مقع إنه بدشي ويوجين مركا صورك نيكا مارتي نيكا ولا رادي ولا رادي ولا رادي مركا دبوا حالي قرول قاضي ربي وإربوتك بس لوسي ساري أيو كجري مركاسي بوليسكو فرحان بس كي على قبتي مكي والله قبتي مرك يعقوب نصيب حمو على سو قبتي يعقوب والله قبتي بوليسكي ويودين حبسي على جي سؤال على ويدي وشيء حوله يعني جاي تاشان قبلها ولا عليه قعنت كوي ويل كنا درس أنا ولا شيء وحنا كسمي هذا ندتك حافظة يقول عاي إنك تكان لا ولا شهر كان على وهاي ولا شهر أنا قد واحد سماه قرواي نفتك جوي يصير كان خايف كل علي ودرس كتير وقبلنا ولا شيء أساس وقلاي مركا عني وحيرو حربتاي قسمية بوليسكي وساق حيان محكمة دي على كان قاضي في على جو محكمة إلهي كبقى قصة دي ولقيست ينك كان شغال وقبته بوليسكي لفتركود بارتان كوا كترين نك كان إنه سوينجيس دبك قليل ودنك نشقا يستوها هو يديسي ولا ليهيس يوغونا او سو كورين او كوريني ابهود كدنتي نكن دين حماشه او شقيستا او ادنا ان ولي استغال لغلين اذا بدن ودك كل شيء wax ku bartay qaadiga markuu fahmo ardigaaga iyo sharafkaaga de marka difaacaysid wax sahlan ma qaadiga markuu wuxuu yiri hal raadiyo reerka muddo 2 bilood ah inay ninkan cafiyaan reerka maajid waay yamaniinti inay ninkan cafiyaan labadaas bilood haday ku cafin waayaan haday dariiqo kale ma taalo waa la dilayaa ninkan ninkii wax dila waa la dilayaa laakiin waxa dhici karta inay cafiyaan cafisa loo weydiiyo ما هنا لودي لنك هنا لودي له لما بالوا مركت لقبت بشي وجوه الرئيس نو وحي تاجنا هنا لودي له كذب جرايد كانوا صغري شكذي نيد مركت تاجر إصناعية والسعوديانة وحنو صن أو ترمل كيو مال والبتجي أو ليري كان صراكو هيا دور بلود كذب وبحث وعد ما نسان ayaa wuxuu qisadii ka akhriyay joornaalka wuxuu soo raadiyay qaadigii iyo maxkamadii iyo booliiskii kiiskii ogaaday ninkii wuu baxay kaligiis arab sacuudiyana waay shaqadii tiri gurigii loo tilmaamay asii darawalkiisa bas waa nin iska xanuunsan oday gurigu tiri islaantii tiri yamaniyada ahayd uu la fariistay حيري أنيجا وحنا هاي هبل نيكا إسكالي دكامهاس وهانتداس إسكالي حسنا أنيجا جاد معي نن جاد كسو جيد معي عدة لبعتدا جيستينا أنيجا حتى لما حريرين ولا ما حد بوليسكا يحكت يجرايد وحنا سو آخري وحنا رباوي يري قصة السيدة أطلع بوليسكا أي شيء يمرقاتياشي وحدا wiilkiinu inuu gardarnaa gabar dariskiisa ah oo adika aad daristihiin
oo walaashiisoo kalaa inuu xadgudub ku samaynay ninkanna walaashiisa cirdigeeda iyo sharafkeeda difaacayo alcumuum waxaas dhan iska soo qaad ninkan hadda in la toogto oo qoorta laga jaro ayaa miiska u saaran bilaa u hartay bilaa calaykum waxaan idin weydiisanayaa ninka inaan badbaadiyo 2 milyan oo riyaal aan idin siinayaa waa lacag badan wiilkiinana isagaa qaladka iska lahaa ninkaa miskiinkaa in la sii daayo oo dilkaa uu ka badbaado anigana ilaahay inuu igu naxariisto waan xanuunsanahay aan ku weydiisanayaa weydiida maalinkii hor hooyada waa soo tashanaynaa tiri waa idii soo noqonaa yiri 5 maalmood kadib wuu baxay wuu soo laabtay way tashadeen maxaan samaynaa kolley wiilkiina dhaafay yaman lacag loo sheegay soomaali waa gadanay wiilki waa la dhaafay saala khaa'in ahaa saala gardarnaa marka haddaan ninkaan lacagta ka qaadan weyno lacagtiina waana dhaafay wiilkii waana dhaafay khaa'inka ah oo wiilkaan dhalle saa dambiila ahaa oo gabadha ku tacadiye lacagta ma qaadanaa aan qaadanay dheheen ninkii waa soo laabtay hayuu dhah maamadii waxay tiri diyadiisa waa qaadanaynaa waana cafiyey odaygii waa farxay jeega u qoray 2 milyan inuu siiyay ahayd moogtahay maadaama ay iga farxiseen 3 milyan ay idinkaga dhigoy 3 malaayiin oo maaragtay riyaal dhab lagu siiyo boliiskii loo yeeray maxkamadii la geeyay islaantii waa cafiyey tiri okay aa leeyahay bas qaadigii marka lagu soo celiyay maxkamadii la keenay wiilkii marka waxaa lagu yiri ninaa ilaahay dartiis oon ku garanayn kaa bixiyay lacag qoortaada furtay marka sidaa daraaddeed qoor jaridii dilka ahayd oo lagu dili lahaa waa lagaa daayay cidiina way ku cafiyeen haye laakiin waxaa jira oo la yidhi tacaasiir waxa la yidhaha macnaha boqortooyada gudaheed inaad inta midi iska qaadato qof iska dishid qalad weyn waalin qaladkii dilka lagaa cafiyey waxaa lagugu xukumay 6 sano oo xabsi ah kii waa 6 sano markaa dhammaysatana waa lagu tarxiilayaa waxaa lagu tarxiilayaa dalkii aa ka soo jeeda ee Chad in xanaaqayo dadka iska dilaayo maxay ma waxaas meeshaan lagama yaqaanaa ninkii xukunkii ku dhacay 6 sano reerkii rafaad dhibaato mushkilad markii dambe ninkii carabka ahaa caawinayay reerka maadaama wiilkii u shaqaynayay kaliya ahaa markii muddo uu xirnaa oo dhibaatadoodii haddana uu maqlay isagoo reerka u tegin ayuu lacag u geyn jiray nina ugu dhiibi jiray shaqaalihiisa ka mid reerkii ikrada laga bixin jiray marka waa kaas 6 sano kadib yacquub waa la soo daayay waa la tarxiilay waxaa loo tarxiilay waddankiisa yacquub waxaa xanuunsatay hooyadiis wuu ka walwalay dadka Chad jooga ma yaqaano ninkaan sacuudigu ku koray meeshaasaa lagu soo tuuray sacuudigii diyaarada inta raaco kuma laaban karo ma soo noqon kartidaa loo dhajiyey waa soo tahriibay suudaan Ethiopia halkaas soo maray dhag yaman soo galay yaman kadib sacuudigu soo galay maamadii u yimid maamadii asaga inay sugaysaa mud markuu asaga yimid ay iska ooysay gabdhihii la ooyeen maalmo kadib maamadii way dhimatay hooyadii qabrigeedii uu aasay boliiskii waxay ogaadeen ninkii yacquub ah inuu soo laabtay waa la qabtay marka asaga iyo gabdhihii la dhashay waa la tarxiilay waxaa loo tarxiilay waddankoodii Chad hadda marka waxaa la yidhi ninkii yacquub ahaa iyo walaalihiis waxay ku nool yihiin Chad marka waa qiso runtii aad iyo aad cajiib u ah marka
waxyaabo badan ayaa qisadan laga baran karaa. ninkan horta sidiisa Yacquuba wiil fiican oo ahaa, waxa kan qadar Ilaahay isaga dhacdo ninkan qoorta ka jaray maahane, waana la carooday moogtay. laakiin baarinimada uu baariga u ahaa waalidkiis qayb ka taaliri in uu badbaado. ninkiina waan idinka iloobay, ninkii carabka ahaa waxaa la yiri wuxuu ku laabtay Jarmalka. maxaa cuntee dhexeen adi? أنا ما في عنها يقول محا عنتي محا وحي مبا ديك كستا لغا قاضي اسكان كستا لا ساري علوشيسا marka hore lagu arkay kansarka malba ku jiraba. sadaqada moogtahay waxyaabaha waxa kamid tahay qofka wax badan u tara. ninkii carabka isaguna waa ku badbaaday, Yacquub waa badbaaday, maamadii waqtigeeda dhamaad way dhimatay, walaalihiisii asagana jaaday hadda ku nool yihiin. marka qisadeena toddobaadkan asxaabay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. runtii waxay ahayd qiso aad iyo aad cajiib u ah. haddaba waa jeclahay fakarkiina iyo aragtidiina noo soo qora marka aad daawataan. intii wax qori kartaba waxay idinla tahay wixii qisadan laga faa'iiday noo soo qora. hana iloobinina inaad like garaysaan oo aad share garaysaan channelkeena qisooyinka nadaara 2. haddaad nagu cusub tahayna subscribe ka iloobin YouTube-ka, Facebook-na follow garay. inta aan mar kale iyo qiso kale ku kulmayno nabadgelyo.